كل يسقال بقول يسقال اللي إحنا كاتبه بالله بتاعه بالله قيدي جعل محمد سياد بري قطب تاريخي هذا ولا ريد أيوك جديي قالها قرصوركا تمريد هذا مراد الصومالية أو أركي إن يحيد أود أقوم مهم سن دلك مسألة هذه سيور مركز سبا قعن وين كوي على كرتا وحنا قطب الجالسية وقرصوركا كجديي أي هايد سيدة saaka waxaan u jeclaystay inaad halka isugu timaadaan inaan idinkala hadlo waxyaalaha aan isleeyahay danta caamka ah waxay ku xiran tahay shaqadiina iyo ragga badiisa waxa suura gasha inaanu iska naqaan banaanka laakiin cadaalad ragga haya in haddana aanu wajiga iska baranno anigu inaan barto waxa suura gasha iyagu intooda badano inay yaqaaneen saad u tihiin dawladdu waxay ka koobantaa xubno badan oo xubnahaas badan mid walba haddii ay hawsheeda sida xalaasha u haysato dawladnimadii markaas ay suuro geli karto xubinta adinku aad haysaan waxay ka mid tahay xubnaha qiimaha dheer u leh dawladnimada suurowgeeda haddii aynan jirin ama aynan caafimaad qabinna ay dhici karto dawladnimadaasu mid magaca inay noqoto haddaynu maskaxdeenna dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa iyada oo dalkoo idinaba uu si u ba'sanaa oo si aan hufnayn us ahaa haddana dhugsinta weynu waxay ku suurowday cadaaladda inayan sidii loo rabay aynan ahayn iyada oo sababuhu ay fara badan yihiin oo haatan qof khaasa aan la saari karin haddii aynan taasu dhicin cadaaladdu ay ku joogi lahayd amaba loo dayn lahaa hawsheedii inay sidii xaqa u qabsato ma ay dhici karin haba yaraata ee maamulkii xumaa oo dalka lugiyey dibna u dhigay hore u socodkii adduunkoo idil jiray taa waxaan u leeyahay haddeed wixii xunuuba sharci baa ku fadhiya oo sharci baa jira baab qaban hayaa jira haddii baabka haddii lagu qabto waxay la tahay tuuga ma dhacdeen laalushu ma dhaceen waxa haatan loo baxshay musuq maasuq ma dhaceen waxa saad u ogtihiin nimankii khabiiriinta ahaa ay ugu yeereen waa siyaasadda doonaysa oo beenta ahaana ma ay dhaceen wixii siyaasadu doonayso iyo waxayn doonayninna waa kala caddaan lahaayeen haddii sharcigu sidii loo soo dejiyey ama aynu kitaabada ugu dhigannay isu fuli lahaa taa yacni waxaan idinka xusuusinayaa habowgii hoggaanka dalku us habaabay hooyadiisii waxay ka mid ahayd ama waxayba ahaydba sharciga oo shaqadiisii aan qabsanin waxaa isweydiisla marka habowgaasu maxaa u sabab ahaa ma ragga qaaliyaalka ayaa u sabab ahaa mise waxa u sabab ahaayeen siyaasigii mise waxa u sabab ahaayeen nidaam xun oo dhashay maxaa u sabab ahaayeen waxaan oran karnaa marka sababuhu waa badan yihiin haddaba si aanan midna waxba ugu dhimin waxay ku hagaagsan tahay sababtu si kastaba ha ahaadeene cadaaladdu sidii qumanayd uma aynan fulin muddadii aynu soo dhaafnay maanta taariikhdeennu meel dheer bay ka soo bilaabatay laakiin 21kii Oktoobar waxay furtay baal cusub maanta baalkaas cusub ayaynu wax ku qornaynaa isaguna waxa weeye wax walba dhabbihii xalaasha ahaa inay ku fulaan cadaaladdu waa inay ku fushaa qolada sharciga samaysaa waa inay ku fushaa qolada shaqada maamulka dawladduna waa inay ku fushaa shicbiga Soomaaliyeed waa inuu ku fulaa nin shaqaaluhu waa inuu ku fulaa beerleydu waa inay ku fushaa xoolo dhaqatadu waa inay ku fushaa dadka tacliintu waa inay ku fulaan nin walba wada cad buu leeyahay wadadiisa waa inay ku socdaan taasu waxay marka suuro gelinaysaa dad qoom ah oo dawlad ah oo socda oo sharaf leh
inaynu noqonno ay suuro gelinaysaa haddii qolaba dhabaha xaqa ay ka leexato oo u weydaarato qolada kale dhabaheeda wax walba markaa waa markay isku qasmahayaan kadibeedna waxay dhalaan ay tahay xumaan iyo musuqmaasuqii foosha xumaa waxaan leeyahay marka bacdama intii revolutionka uu dhacay amaba dadka salabka sida ay xukunka dalka la wareegeen iyo intay dawladda dhiseen intaba aynan suuro gelin adinkoo khaasa inaan idinla hadlo saaka yacni sababteedu taas bay ahayd saaka ururkeennu ama aniga ujeeddaydu waxaa weeye mas-uulkii aad lahaydeen dhabarka inaan idinka saaro wax marmarsiinyaha oo suuro galaana inaynan jirin mas-uulkaasu waxaa weeye xubinta lafdhabarka ah xubnaha badan oo dawladdu ay ka koobanto adinka haysaan qaaliyaalka yahaya meel kastaba ha joogeen shuruucdii waddanka lagu wadi lahaana giddigood waa dhigan yihiin oo mid aan oolino ma jiro ama ha noqdo midka casriga ha noqdo ama midka sharciga ha noqde mid aan dhignayno ma jiro waxaan idin weydiisanayaa inaad fulisaan sharciga oo sida xaqa aad u fulisaan waxaa caadada adduunka ama taariikhda aan ka akhrisan jirnay ama haddaanu dalalka adduunka aanu marno aanu la kulannaa munamentooyin waaweyn ama yacni sawirro waaweyn oo muxuu ahaa meelaha caasimadaha dawladaha hore u kacay ka dhisan oo ay u dhisan yihiin niman qaaliyaal ah oo geesiyaal ahaayeen oo la dagaalamay shubada ama laaluushka oo la dagaalamay cadaalad xumada oo la dagaalamay xataa madaxdooda oo ka hor istaagay dadkoodu amaba dalkoodu inuu wadda xun qaado oo iswaayo nabadgelyo ama cadaalad iswaayo annagu xaq baanu u leenahay raggaasu inay naga soo baxaan ku dagaalama cadaaladda geesiyaala aan ka baqin damaaciga adduunka kuwa hor istaaga tii xumayd oo qolada ahayd oo lala ordi jiray hor istaaga kuwa cabsi geliya hor istaaga waanu u baahnaa annaga naftanadu waana adinka hadda saaka iyo hor fadhiya ragga ku duuli karaa qiirada caynkaasa oo marka sharaf wanaagsan soo hoysan karaa mid haddii laydin fiiriyo adinka oo sharfaaya qaaliga ninka la yidhaahdaa qiimaha uu leeyahay ragga cadaaladda maamula qaarkood laakiin annagu kulli baan u naqaanaa ninkii haya muxuu ahaa cadaaladda fulinteeda mas-uulkeedu uu saaran yahay oo idil baanu u naqaanaa saa yacni waa u baahan tahay soomaaliya inay hesho wiilal noocaas ah oo taariikhda adduunka ah wax badan baan aniga naftaydu la kulmay ama akhristay qaali aad iyo aad looga baqo laakiin baqrintaasu ayan ahayn inuu dad uleeyo baqrintaasu ayan ahayn inuu muxuu ahaa wax kaleeta sameeyo laakiin haybadiisa laga baqo ka timid naqidda uu naqahayo sharciga oo usan marnaba ugu asxaanfalaynin oo turjubaan xaqa keliya waxaan idinka rajaynayaa baalkii cusbaa oo taariikhda soomaalidu ay ka bilaabatay aniga oo tixgelinhaya ama adinka oo ka bilaabahaya in aad shaqadiinna u gudataan sida fiican geesinimada ah wadaninimada ah islaamnimada ah waxaan ku cilmi leeyahay in dhibaatooyin badan adinka naftiinnu aad la kulmaysaan oo cadaaladda lagu goynaysaan inay dhici karto dhaqaalaha inaad ka cabataan qoladiinna tanu oo aan la socday waxaad dhici kartaa inaad meeshii wax lagu xukumaya aad ka cabataan oo aan fahmi karo waxaa dhici karaa wixii wax lagu xukumayey oo alaabo ahaa oo suuro gelinayay xakaamaddu inay hagaagto inaad ka waxaysan tihiin waa dhici kartaa laakiin soomaalida waxay ku maamaadaan nin walba taagtiis baa qodax ugu tagta awoodeennu hadday inoo diiddo sharcigeenna waa inaynu ku goosannaa ama ku guddoominaa geedka hoostiisa ma jirto sabab
aynu oran karnaa waxa maqan miis qurux badan oo ballaaran kuraas qurux badan kuwaaba maqan marka sharciga socon maayo no taas waa inay dhacdo waxa wax lagu xukumo waxa weeye aqoonta sharciga oo ninkii sharcigii fulinaya ay laga maarmaan tahay nin u qalma inuu meeshii joogo midda labaadna waxa weeye niyo wadaniga inuu leeyahay midda saddexaadna in uu fahmayo cadaaladdu waxa ay tahay iyo xubno kaleeto oo badan intaa hadday joogto kursigu waxba lama maqna waa ay habboon tahay in waraaqihii buugagii qalimadii qaddii kursigii xafiiskii gaarigii reerkii inuu isku rakibay waa fiicanta laakiin haddii la waayo oo awoodda waddanku isgaari waayo adiguna waa joogtaa aqoontiina waa leedahay ummaddiina inaad kala saartaa lagaa doonaya intaba marka waad heli kartaa waxaan rajaynayaa inaynu marka kala aanu hubsanno mar walba inaynu tixgelinno dalkeennu muxuu dhali karaa Wagasinke adigala